waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan waajibaadkayga u gudan doono si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta una hoggaansami doono dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Ilaahay baa mahad iska leh oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano oo aan markhaati ka noqono dhaarta la dhaarinayo guddiga madax bannaan ee musuqmaasuqa oo muddo dheer la sugayay oo maalintii nala doortay ilaa hadda aan ku taaminaynay in guddigan uu yahay guddi lafdhabar u ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dowlad wanaag. alxamdulilah maanta hadday soo gaartay ilaahay baa maanta kulleyba noo qoray inaan halkan isugu imaano oo aan markhaati ka noqono munaasabaddan. waxaa weeye mas-uuliyad idin saaran mas-uuliyad yar ma aha, waa mas-uuliyad aada iyo aada u weyn, waana siduu sheegay guddoomiyaha cudur Soomaaliya hareeyey oo ka daran tan argagixisada oo haysata oo maalin walba ay ku xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed, kuwa wax galabsan, caruur, duqey, dumar, cid walbaba. musuqmaasuqa dhibaatadiisa kama yara taas, maxaa yeelay waxaa weeye qof ummad mas-uul looga dhigay oo mas-uuliyad haya oo lagu aaminay xilka, weliba lagu dhaariyey inuu ku takrifalo wixii ummadda u dhexeeyey ama wixii ummadda ka dhexeeyey. taasna aan ognahay xaqiiqatan inayna siisay magac aada iyo aada u falxun ummadda Soomaaliyeed, inay soo jiitay sharaf xumo oo sanad walbaba Transparency International aan ku mutaysano inaan nahay waddanka ugu musuqmaasuqa badan, annagoo dad islaan ah, annagoo dad Soomaaliyeed dhaqan wanaagsan ah, in lagu tilmaamo waddanka ugu laalaabka badan, ugu tuugada badan. runtii wax aada u falxun wey. waxaana qayb ka ah burburka aan ku jirnay muddo dheer oo systemkii dowliga ahaa uu nooga burburay. waqtigay qaadanaysaa marka wixii ilaahay ka baqa oo ilaahay cabsi ummadda ammaanada uga taga mooyee in qofka uu ka baqo systemka yaa horta ugu horeeya wax lagu hagaajiyo systemka dowliga. qayb weynna waxaa ka ah mas-uuliyadda hadda lagiin dhaariyey in idinkoona cidna u eexan, cidna u fiirin darajada ay hayaan, idinkaas ka bilowda inaad tihiin dad nadiif ah oo ilaahay ka baqaya oo aamin ah, inaad u baartaan wax alla wixii aad aragtaan oo qalac ku jira inaad toosisaan. macnaheedu waxa weeye waxaad tihiin dadkii cadaalad laga soo dooranayay oo laga soo dooranayay dowladnimadeenna iyo magaceenna iyo qaarnimadeena inay hagaajiyaan oo ay qurxiyaan. waa ognahay musuqmaasuqa annagu ma nihin dalka keliya ugu musuqmaasuq badan ma nihin, laakiin waxaan nahay dalka marka la sheego ugu badan yaan nahay. inta lagu soo xigta markaad fiirso xaaladday ku jiraan dowladeed, xaaladda nololeed ay ku jiraan, xaaladda amni ay ku jiraan, waxa weeye mid aada u hooseysa. waxaana qayb ka ah markii dadku wixii loogu dhiibay mas-uuliyiinta loogu dhiibay oo siduu rabay ka yeelo, keliya maaliyad ma aha, eexda maxaan ku idhahdaa qofka aan mudnayn in darajo uusan qaadi karin loo dhiibo. maxaa yeelay systemkii yuu burburinaya, keliya maaha lacag qaadasho. waxa weeye qofka marka mas-uulu yahay oo darajo la siiyo, darajadii uusan garayn waxay tahay, hadday tahay aqoon, hadday tahay kartina uusan u lahayn. macnaheedu waxa weye waa system isburburinaya. taasna waxay ku timaadaa annagu waxaan nahay dad qabiilo u samaysan, qabiilo u samaysan. marka qofka in loogu eexdo keliya waa kugu qabiil oo aadan fiirin hay-addan yaa kor u qaadi karaa, sharafka hay-addan iyo magaceeda yaa kor u qaadi karaa, loo fiirin hay-addan yaa socodsiin kara, aan loo fiirin oo ka shaqaysiin kara, ee loo fiiriyo yaa wax tari kartaa. oo qofku wax la tarayo haddii saaxiibtinimo weliba ay yar tahay ayna u badan tahay qabiil in wax lagu siiyo,
qofkaasi uusan waxba ka qaban karin shaqadii loo dhiibay isagana ay dhib ku tahay hay-addiina ay dhib ku tahay iyo horumarkeeda intaas weeye waxaa la rabo ma aha inaad suulinaysaan oo ka tirtiraysaan waqtigay qaadanaysaa maxaa yeelay systemkeena saan sheegay muddo dheer iyo dhulka yaallay burbursanaa in aad bilaawdaan marka inaad systemka la saxo oo systemka laisku shaqaaleeyo la raaco si maxaan ku irahdaa procedure-kii ama qaabkii hanaankii la dhigtay hadday tahay imtixaan hadday tahay qofkaasi khibrad in lagu qaato hadday tahay qofkaasi inuu muddo dheer meesha ka shaqeynayay uu ka horeeyo dadka kale hadba systemka yaalla iyo xeerka yaalla in la marsiiyo qof kasta tan dhaqaalaha waa noogu daranta oo aada moodo qofka hantida ummadda soomaaliyeed sida shaksiga u isticmaalayo inkastoo diinteennu ay mamnuucday uu qofka xalaalaysto oo ila tahay wax caadi ah macnaheedu waxa weeye marka haddii qof walba marka meesha uu joogo ku takrifalo uu sida uu rabo u yeelo wax naga dhexeeyana ay dowlad tahay dowladdaas ma dhismayso meel xun iyay ooleysaa hadday tahay amnigeeda hadday tahay adeega aan bixinayno intoo idinba waxay ooleysaa meel aada iyo aada u hooseysa maxaa yeelay haddii dowladnimadu aysan dhaqaalihii loogu talagalay aan la gelin oo dhaqaalihii loogu talagalay si khalad ah loo isticmaalo waxay imaanaysa marka hay-adihii inaysan kobcin oo aysan hana qaadin oo aysan qaangaarin yaa imaanaysa musuq maasuqa wadamo badan buu hareeyey ha ugu badnaadaan kuwa qaarad waana kuwa gacanta la siiyo oo laga yaabo dowlado shisheeye oo ama ha ahaadaan yurub ama america ha ahaadaan ay ka sugaan handout gacan ay ka sugaan oo la kabo waxaa laga yaabaa dalkaasi inuu ka qanisan yahay waddankaas yurub ku yaalla 1000 jeer inuu ka qanisan yahay laakiin waxaa la isku dhaafay systemka waddankaasi bixinaya mucaawinada oo yar inuu ka system wanaagsan yahay ka nidaamsan yahay ummaddiisuna ay ku kalsoon tahay canshuurtii la aruuriyo iyo wax alla wixii dakhli soo gal dowladda la yaqaano meesha ku baxayso miisaaniyadda sida ay maxaan ku yidhaahdaa loo qoro ay tahay wax qof walba og yahay sida loo kharash garayana qof walba og yahay wixii ka soo haro yaa laga yaabaa marka waddamadaas musuq maasuqa ku jira inay ku kaalmeeyaan oo laga yaabo inay iyagu ka khayraad badan yihiin 1000 jeer ka khayraad badan yihiin laakiin khayraadkooda iyo dakhligooda wuxuu ku baaba'ay wax shaksi jeebkiisa galaya ama nin madax ah oo dad wanaagsan aan shaqaaleynin oo ku shaqaalaysiinaya saan sheegay dad u dhow ama favoritism wax la yidhaahdo oo ugu eexanay uusan fiirinaynin danta hay-adda ama danta dowladda ama danta qaranka uusan fiirinayn marka runtii waxaa halkan idin hor yaalla mas-uuliyad aada iyo aada u culus waddan runtii systemkiisu uu aada u jilicsan yahay oo kabasho kusoo jira dad dowladnimadu muddo badan ay ka maqnayd dad aada iyo aada u baahan oo leh maanta aad waxaad heshay fursad ay ka faa'iideyso weeye waxa aada idinka laydin diray oo aada xisaabinaysaan haddii idinku dadkii baad ka timaadeen dadka banaanka ugama idan imaanin intaas aan sheegay iyada naftigeeda waa lidinku dayaya waxaa lidinku dayayaa in dhaqaale lidinku dayo in siyaalo kale lidinla xaalo si qofna aada ugu adkaysaan qofna aada ugu fudaysaan taasna cadaalad ma aha cadaaladda waxaa weeye in meel alla meeshaad ka aragtaan khalad inaad sidii ilaahay idinku ogyahay aada qabataan oo weliba aad ka bilawdaan madaxda ugu sarreysa aad ka bilowdaan eedan masaakiinta iyo dadka hoose eedan ku mashquulin oo aad ka bilowdaan dadka ugu sarreeya oo aada is leedihiin waxaa laga yaabaa inay ku jiraan khaldaad fara badan waxa weeye waa idin runtii idinku hambalyanayaa ugu dambeyntii waa idinku hambalyanayaa
mas-uuliyaddan culus oo laydin saaray ilaahay ha idin fududeeyo annagana waxaan isku dayeynaa hay-adaha dowladda qeybeeda kala duwan hadday yihiin ciidamada qalabka sida booliiska ugu horeeyo iyo hay-adaha kale iyo wasaaradaha in gacan laydin siiyo oo aan laydinla jaalmi garaynin laydin fududeeyo hawshiin laydin fududeeyo si dalkan magac xumada iyo horumar la-aanta iyo dhibaatada iyo khilaafaadka iyo conflictiga ay aasaas u tahay musuq maasuq musuq maasuqu dowladu dumiyaa intaad aragteen dowladu intaad dumaysa waxay ku dumeen maamul xumo oo ay hoos timaado iyo lunsasho hantida ummadda udhexaysa ummadda iska leeyihiin marka hawl culus baa idinka horeysa annagoo gacan baan idinka siinaynaa wax alla wixii aad u baahan tihiin oo karaankeenna ah idinkana waxaa idinka rabaa inaad tihiin dad hufan dad ilaahay ka baqaaya dad daacad dalkooda u ah dad magac xumada iyo sharaf xumada dalkaan haysata ay dhibayso oo u diyaarsan in ay Soomaaliya ka dhigaan waddan wanaagsan oo nadiif ah oo adduunka oo dhan uu aamini karo waxaan ka wada aamini karo waddan musuqmaasuq hareeyay investment laguma sameeyo maalgashi laguma sameeyo marka waxaa maalgashiga iyo dhaqaalaha keenaya dadkaas inay yihiin guud ahaan mujtamacaas mujtamac nadiif ah oo lala macaamili karo oo aan wax ka soo noqonayn mas-uuliyaddaas idinka keligeeda ma saarna annagoo dhan waana saaran tahay laakiin idinkay shaqadiina tahay allah idin fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu